waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo ninbaa waxa laga sheegay halkan albaaba noo furan asagana yaa naga soo xiro koonfur xaalkeeda waan aragnay oo waa jidkii waa xiran yahay waqooyi hadda waa xirmi rabaa dadka ku nool Hirshabeelle ama Hiiraan gaar ahaan ku nool waxay walwal ka qabaan aan la qiyaasi karin xaaladda murugsan oo cakiran oo isku qasan oo ka jirta galmudug koonfur annagoo saas ula tacaalayna inay waqooyina naga xiranto ma yeelayno wax alla wixii ka qayb qaadanaya in meeshaas tafaraaruq ka yimaado in lagu dagaalamo inuu shabaab soo galo in muxuu ahay dad walaaluhu isdilaan oo siyaasadaysan annaga doorasho waxba naga ma gelin maamul waxba naga ma gelin axsaab is haysta naga ma gelin jidkaas dhuunteennii waay ma aqbalayno jidkaas inuu xirmo dadka walaalaha oo ku nool galmudug waxaan ugu baaqaynaa inay si walaaltinimo sidii Soomaalidu ay wax ku dhaqi jirtay sidii muxuu ahay leesu xigay sidii muxuu ahay leesu xulafo loo ahay sidii abtii aysin loo ahay in muxuu ahay la fiiriyo xamar culayska ka jira oo ama xildhibaan leh ama senator leh ama dawladda leh waxaan leenahay bilaa calaykum ilaahay ka cabsada barakada soonka fiiriya ummadaasu waxay u baahan tahay in la kala dhaxgalo in la qaboojiyo in la wanaajiyo ma u baahna siyaasad ma u baahna axsaab ma u baahna maxaa campaign siyaasadeed ma u baahna olole doorasho waxay u baahan tahay yaa wax doorta dad heshiisaha wax doorta